waan arkayseen maanta wuxuu ku hadlayay ninka Roobla wuxuu yiri wadanka midnimadiisiiba halis ku jirta markaasuu adduun yiri Soomaaliland waa saxsantahay iska socoto ninkii khayraha saaxiibkeena dastuurka hadlaya iyo in la ixtiraamo xuquuqda insaanka ninkii duhur cad habeen madow ku soo ekeeyay weerarka ninka saaxiibkiisu ag fadhiya waa dulqaadkiisa la yaabana Cabdiraxmaan Abdishkuur ninkaas ayaa wuxuu noo sheegayaa baarlamaanka Soomaaliya ayuu ciidankii soo gali gudoomiyihii odagii jawaabay Allah naxariisti waxaan isleeyahay diyadiisa ninkaas loo raacdo nimankii racween waa joogan sheekh Shariif waa saaxiibkaygu way waxba kama sheegi karo asaga laakiin runtii banaan jooga ku dheeraaday Axmed Ciise Cawad maxaa lagu xushay hadda aniga ma garan karo sabab loo xushay sabab ugu jira ninkaas maba jooga xitaa waqtiga badankiisa nin iska maqan oo balaayaha maskaxdiisu maqan tahay ninka Cabdiraxmaan Abdishkuur oo dimuqraadiga oo Britishka baasaboorka Britishka wata qof iyo qori oo soo qoray madaxda muddada dheer ra'iisul wasaarayaasha soo noqday madaxweynayaasha soo noqday qaarkood wasiirro yihiin criteria lagu xushay aysan jirin dalkan 300 oo wasiir ka badan ayaa soo baxday Axmed Ciise Cawad maxaa lagu xushay hadda aniga ma garan karo sabab loo xushay sabab ugu jira 300 oo qof oo wasiirada soo martay iyo kuwa lamid ah sabab lagu xushay ninkaas maba jooga xitaa waqtiga badankiisa nin iska maqan oo balaayaha maskaxdiisu maqan tahay asaga iyo kuwa lamid ah marka sabab lagu xushay ma garanayo nimanka odayaasha laakiin waxaan aragnay iyagoo isku magacaabay madasha samata bixinta ayagoo isku magacaabay madasha samata bixinta madaxweynuhu nabadoonnimo iyo Soomaaliya gobol Soomaaliyeed baa la fidin waayay iyo Soomaali baa loo yeeri waayay iyo dad maalin xilal soo qabtay baa maaragtay lala hadli waayay baabkaas ayadoo la xiray ayuu 10 qofood 12 qofood Soomaalida dhan oo jirta 12 qofood oo meelahan jasiiro isku aruursatay jasiiradan hadda jooga ayuu gobol u furay ayaga qiray 5 jeer baa la kulmay xigmad ku dhex jirta oo laga raadinayo ma jirin laakiin waxa laga raadinayo Soomaali odayaal ah oo xilal soo qabtay ayaa gobol loo fidi waayo la hadli waayo ayagoo wada hadal rabo inta laga rabay intaas ahayd laakiin aniga weligay uma fadhin waan arkayseen maanta wuxuu ku hadlayay ninka Roobla wuxuu yiri wadanka midnimadiisiiba halis ku jirta markaasuu adduun yiri Soomaaliland waa saxsantahay iska socoto adoo hadda arintaas fasir adiga tabtaas uu yiri wallahi billah wuxuu yiri doorasho waxaan rabnaa xor ah oo xalaal ah oo dimuqraadi ah haddana madaxweynihii doorashadii waa kala heshiin weyn yiri waana inta dawladdu wadaba doorasho qof iyo codaba la wadaaba ninkii khayraha saaxiibkeena dastuurka hadlaya iyo in la ixtiraamo xuquuqda insaanka ninkii duhur cad habeen madow ku soo ekeeyay weerarka ninka saaxiibkiisu ag fadhiya waa dulqaadkiisa la yaabana Cabdiraxmaan Abdishkuur waa nin dulqaad badan ninkaas ayaa wuxuu noo sheegayaa baarlamaanka Soomaaliya ayuu ciidankii soo gali gudoomiyihii odagii jawaabay Allah naxariisti waxaan isleeyahay diyadiisa ninkaas loo raacdo nimankii racween waa joogan murugo u dhintay ninkaas oday weyn oo maaragtay Soomaali dadka ugu cirada badan ugu cilmiga ugu maaragtay dawladnimada marka la yiraahdo dadkii ugu khibrada badnaa ayaa baarlamaankiisa ciidan la galay markaas xilkii qasab looga qaaday markaasuu leeyahay dastuurkii baa lagu xad gudbay war dastuurka wixii adigu waa ku dhex jirtay
oo dhiiqada ahaa miyaysan ahayn dastuur lagu xadgudbahay guud ahaan. marka raggaas odayaasha ah sheekh shariifa waa saaxiibkaygu weeyo waxba kama sheegi karo asaga, laakiin runtii bannaan jooggaa ku dheeraaday ninkaas. marka guud ahaan raggaas odayaasha runtii aniga waxaan dhihi karaa doorbinkii siyaasadda ayaa ka lumay. rag fiican way jiraan, adiga afartan baad aragteene. ninka cabdiraxmaan cabdishakuur ah oo dimuqraadiga ah oo britishka baasboorka britishka wata qof iyo qori uu soo qoray, yani maba laga filaynba waxyaalahaas in loo noqdo. annaguna dowladis baa ka hadlayseen, ragna waxay soo qorayaan aqoon-yahankii soomaalida oo laga filayay inay dalkan wax ka badbaadiyaan oo dalkan hawshiisa dagaal bay ku boorinayaan, cunfi bay ku dhawaaqayaan, in la diriro ummadda soomaaliyeed dirirto oo magaaladaas sidaa u qurxoon ummaddaas yacni mustaqbalka weyn tiigsanaysa oo qof iyo cod rabta maanta inay codayso, ummaddaasaa dagaal lagu baaqaya. anigu waxaan dhihi karaa dowlad dhiskeenna waxaa ka dhimanaa wuxuu ahaa hogaamiyaasheennu siday ku soo baxaan. waa meeshaan kusoo gabagabaynayo, waa meesha sanad walba lacagta carabaha ka timid ay jahwareerin jirtay, codka noona soo saari jirtay hadba hogaamiye ku soo baxay lacagtaas. waa meesha xildhibaanadeenna aan ognahay siday ku soo baxaan iyo ergooyinkeeda. waa ilaa iyo ruudka waxaa la geeyey corruptionka hadda laga hadlayo fasaadka, jufadii baa la dhex geeyey. waa meesha sanad walba jufooyinka wax wada leh 4 sano marka la joogaba jufadii xildhibaan wada leh way kala dhimataa. 4 sano ay ku qaadataa inay dib isugu timaado, waxayna isku yimaadaan ayagoo wada hadlin. marka kaloo xildhibaanka la dooranayo ayagoo sidii u dirsan, meeshii haddana khilaaf cusub oo kale kasii dhasha. ha laga baxaa la yidhi taas